Asalaamu calaykum asxaabteyda markale muuqaal cusub kusoo dhawaada idin leenahay maanta waxaan wada bariis isku karis aad iyo aad u macaan isku dheeli tiran iyo cabitaankii maasha allah waa ka heli doontaan ubaal idinkala soo dhawaada. Halkan waxaa kusoo shubtay saliid yar xoogaa qiyaasteeda iyo basal hal xabo oo si yar ah usoo jarjaray maasha allah. Marka wax sugayna xoogaa basasheena intay noo soo yaraa kululaanayso oo yar brown kasoo noqonayso danada u jeediin basasheeni wayna soo kululaatay. waxaa kusoo daray qorfihii carfiska bariiska bay leaves kusoo daray iyo qorfa caadiya. Dalaal waxaa kusoo daray xawaajiyo isku dartar xawaaji bur isku dartar oo soo shiidnaa kusoo darsanay hal qaado iyo qaado qarkeed oo ridka cuntada kusoo darsanay. qaada soo dhex marinay haddana waxaan rabnaa inaan ku darsano hilibkeeni. ujeedaan hilibka waa hilib ari soo jajaray markaa ku darsanayna maadaama bariis karis uu yahay. hadda waxaan ku darsanay hilibkii xoogaa qaadadaa dhex marinayna. maasha allah ujeedaan hilibkii khudaarta waa soo dhex gelinay. haddana waxaan ku darsanaynaa hal bakeero biyo ah si hilibkeena uu soo yara karo. daboolkaan saaraynaa kadib oo usoo laaban doonaa. maasha allah marka haddaa usoo laabanay hilibkeeni waad aragtaan siduu noogu soo bislaaday maasha allah. waxaa kusoo daray bariiskii oo biyo lasoo dhigay aaditoonta ka horaa biyo lasoo dhigay xoogaa biyo igu soo jiray waxaa kusoo daray bariiska yaalkoobi bar waaye inta aada qiyaastaada aa karsani kartaa. bariiska biyaha inuu kaaga batal marabo bariis aad macaan isku dheeli tiran maasha allah inuu kugu soo baxala marka wax walbo inaa isku qiyaasata isku day. aragtaan waxaa kusoo daray biyo oo ka karsanaa kusoo daray yeelay gadaal waxaa uga daraa cusbo. haddaa cusbo kula daray waa weedeen iyo wax yaroo jimba haddaa waqtiyaada isku fiicneen cusbadan ay ku darsan kartaa qiyaastaada intee. maasha allah bariiskeena ujeedaan wuu soo karaayo weli laakiin hawaa qoyaana ku jira weli ma dhamaystirno. hadda xoogaa saliibsagooda kor usoo dadaadiyey marka waxay raada walka saaraynaa dabkana aad iyo aada uu gaabinayaa. maasha allah ugu dambeyn bariiskeena waa karaa isagoo isku dheelitiran dhadhankiisa aan laga sheekeyni karin. inaba caadi maha bariis isku karis aad iyo aad u macaan. waxaa noogu diyaarsan cabitaankeena oo beetraaf ka sameysan beetroot iyo waxyar bashoon laisku dara. bashoonka caraf caag lee karbaa aada u jeclahay laakiin cabitaankan beetroot walaa inaba caadi ma ahan laga sheekeyn karo.
haddaa baratid wax kalama lagu karaayo, waa cabta aad iyo aad u macaan. marka hadda beetrootkeeni blenderka kusoo shubanay, mashiinka cabitaanka lagu shiido waxaa gadaal laga soo darnay hal koob biyo camal ah. marka waxaa rabnaa inaan shiidno. soo shiidanay haddana waxaa rabnaa inaan meerno si qashinka looga haro. haddana waxaa gadaal laga soo darnay waxyaroo sokora kusoo darnay. sokortii iyo cabitaanka waxyar isdhex gelinayna. hadda waxaa kusoo darsanay jafyaroo liin dhanaanta. beetroodka dhadhan aad iyo aad u macaan ay siisaa haddaa ku darsatid, maasha allah inaba caadihin aa laga sheekeyn karin. intan waxaa kusoo shubanay aiska barafaa kusoo shubanay galaaskaas. marka cabitaankeena yarnaa dhankiisa inaa tijaabid wallaahi inaba caadi maa lagama sheekeyn karo. sidaan noogu soo baxay ugu dambeyn maasha allah.